waxaa masaajidka Rawda ee magaalada Mandheera ka qabsoomay kulan u dhaxeeyay culummada ka soo kala jeeda beelaha ay dhawaan xurgufta ku dhex martay degmada Ramu ee waqooyiga Mandheera. Culummadan ayaa taageeray go'aankii dhawaan ka soo baxay mas'uuliyiinta ismaamulka ee ku aadanaa xabad joojinta la dhex dhigay labada beelood, waxa ayna mas'uuliyiinta ugu baaqeen in si degdeg ah loo soo saaro guddigii ka shaqayn lahaa nabadeynta. la qaaday oo la dhahay xabad joojin ha lagu dhawaaqo xalkana dawladda ayaa maaragtay sida ugu degdeg badan iyo odayaalka dhaqanka oo isla jira ayaa guddi soo saaraya arrintan xal ka gaaro oo ummadda ma garanaysa waxay isku haystaan u kala saarta. waa tii la dhahay marka shacabka dhulka degan waxaan u sheegaynaa in aan maaragtay oona ka codsanaynaa oona ugu duceynaynaa in ay xabadaas ay jibinin waxyaalo yar yar oo dhacaya na soo gargaarahay oo qaladaad ah qaladaadkaas in la joojiyo. sidoo kale culummada ayaa baaq u dirtay bulshada ku nool waqooyiga Mandheera iyagoo ugu baaqay in aan la jabin balantii xabad joojinta, waxa ayna bulshada xasuusinayaan waxa ay diinta islaamka ka qabto daadinta dhiigga muslimiinta iyo in bulshada laga dhex abuuro fidno. dadka muslimka oo meesha xabadda isku haysta horta waa inay ogaadaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam qowlkiisu uu yidhi idal taqal muslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar. laba muslimiin hadday seef intay isu qaataan ay isku laayaan isku dilaan kii la dili iyo kii wax diliba ahlu naar waay. teeda kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi muslim waxaa la yidhaha almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. muslim waa muslimkii gacantiisa iyo afkiisa laga nabadgalay. midka xabadda haysta ama nabarka haysta gacantiisa laga nabadgala, midka afka ka soo dira oo midiyaha iyo ama adduunka meesha jooga ka soo hadla asagana afkiisa laga nabadgala. muslimiinta afka iyo gacanta laga nabadgeliyo. teeda kale baaqayna waxaa ka mid ah dadka meesha degan oo isku dagaalamaha dad jiiraan waay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhir ninka ilaahay ay qiyaamo rumaysan falyukrim jaarahu jiiraankiisa karaamee. jiiraanka saddex xaquuquu leeyahay hadduu muslim yahay hadduu qaraabo yahay. saddexdii aa naga dhexaysa muslimaan nahnay qaraabaan nahnay marka waxaa waaye jiiraannimadii aa naga sii dhexaysa. dad isqaniini kara ma nihin, dad isla hadli dad isxumayn kara ma nihin, dad oo dhiig iyo dhacaan dhexmaryaan nahnay. ahlu jannaan rabnaa ilaahay inaad naga raalli noqdaan rabnaa, wax ilaahay caragelinaa inaan ku dhaqanna ma rabna. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegay macnaha qur'aankiisa naarta dad in loo abuuri. dadkaas ayada dadkan adduunka joogaan waaye. hebelaa ka mid heblaayaa ka mid magacooda lama sheegin laakiin tilmaantooda walaqad dara'naa lijahannama kathiir min al-insi waljin lahum quluubun. dadka waa hadda qalbi ay qabaan oo hebel iyo heblaaye waa laakiin macnaha qalbi oo diinta lagu fahmaa maaha. haddii diinta loo sheega oo culummadan baaqeeda ha noo sheegin alalalalala ayla waa dabaaldegaysaa kan raaw ayaad leeyahay. indha ay qabaan laakiin xaqa ku arki ma hayiin. nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaa noo sheegay dad albaabkii naarta taagan kaalii naar soo galaay kaalii naar soo galaay. dadkan oo macnaha fidnada wadaan naartay dadka ugu yeeri hayaan. dhalinyaroy waad maqlaysiin naartaas kaalii naar soo galaay. qofka muslim dile falqaatilu walmaqtuulu ma fi naar. ninkii muslim dile kii la dile iyo kii wax diliba ahlu naar waaye. saa darteed ma naaraad u diido arjoogaay arnaartaka joogaay arnaartaka joogaay. hooye wiilkaas qaali waaye geeri lama rabna geerida ka celi. wiilkaada qabsa hooye wiilkaada qabsa eedaay wiilkaada qabsa naarta ka qaba gablan ka qaba hadhowtaad jilbahaada ku oyn doontaa. bilcaantan allaasayse oo wiilisha ku daba allaasayse ahlu naaraad tihiin ahlu naaraad tihiin ahlu naaraad tihiin. naartaka jooga oo naartaka jooga oo rag ah isku caraabina markaas ayada. walaalayaalow haddaadan dhiigga kala badbaadin karin baasiina ku sii shubina. waxaan ugu yeeraynaa walaalaha safka hore ku jira oo rabaan inay isdilaan. war dhiiggiina ilaahay waa idinka xaaraantimey. wax aad ka faa'iidaysaan aakhriya adduun ma laha. khasaaro waxaan ahayn inkama soo gaaraysa war ka jooga.
culummada ayaa dhanka kale baaq u dirtay dadka baraha bulshada ku baahiya wararka been abuurka ah ee kiciya bulshada. kuwaan balaayada wadaan oo balaayada afuufayeen TikTok iyo macnaha website waxay ku afoofaan iyo kuwaan duurka wareega kuwaas ayaga waaye alla kuwaas waxaas ku tilmaamay ulaa'ika kalan caami horta kuwaas waa ida iyo riicad iyo lo iyo geel iyo dameera oo kalaata ayay la tooyihiin balhum adallu wayba ka liitanaa dhaha kuwaas ayade ninkaadana maqlayow wiilkaadaas bodboodayow wiilkaas fidnaayada abuurayow ha noqonin nin ay riicadka ay ka roon yihiin ha noqonin. waxaan codsanaynaa baaqaas in nagala qaata saqiir iyo kabiir ay naga qaataan madaxda iyo dawladda iyo odayaasha aan ku kaalmayna ay naga qaataan ninka duurka jooga oo hubka wata aan naga qaata ninka qalqaalina oo af iyo adin iskugu daraha aan naga qaata baaqaas in nagala qaataan doonaynaa waa ducoonaynaa haddaan nahna culummada labada cidood iyadoo nagu kaban yihiin culummada Mandheera oo dhammaala marka baaqaasaan soo jeedinaynaa baaqaasaan nagala qaata baaq nabadeed waay. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim Cabdiqafaar Habi warbaahinta Star ismaamulka Mandheera.